muuqaalka maanta aan idiin haynaa waxa uu ku saabsan yahay dagaalkii koowaad ee adduunka. wuxuu noqon doonaa taxano qaybo kala duwan yeesha. muuqaalkeena maanta waxaad kaga bogan doontaan qaybtii koowaad. daawasho wacan. dagaalkii koowaad ee adduunku wuxuu bilowday 1914 kadib dilkii Archduke Franz Ferdinand waxa uu dhamaaday 1918. intii dagaalkii koowaad ee adduunku socday, wadamada Jarmalka, wadankii la isku oran jiray Austria-Hungary, Bulgaria iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta ayaa la dagaalamay gaashaanbuurtii ka koobnayd wadamada boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Ruushka, Talyaaniga, Romania, Japan iyo dalka Mareykanka. markii dagaalkii dhamaaday, guushu waxay raacday gaashaanbuurtii uu hogaaminayay Ruushku, waxaana dagaalkaasi sababsaday geerida in ka badan 16 milyan oo qof oo isugu jira askar iyo shacab maata. waxaynu soo xusnay in dagaalkii koowaad ee adduunku ka bilowday dilka Franz Ferdinand. haddaba kuma ahaa Archduke Franz Ferdinand? intaanu bilaaban dagaalkii koowaad ee dunidu, waxaa xaaladii ka dhex aloosnayd wadamada reer Yurub, gaar ahaan wadamada Balkaniska la isku oran jiray ee ku yaala koonfur bari ee qaaradda Yurub, oo ay ka mid ahaayeen wadamada Bosnia, Serbia, Herzegovina oo ah koonfurta wadanka Bosnia oo caasimadiisuna ay tahay Sarajevo. Franz Ferdinand waxa uu ahaa wiilkii curad ee Archduke Karl Ludwig, oo ahaa hogaamiyihii boqortooyadii la isku oran jiray Austria-Hungary ee xukunkeedu gaadhsanaa ilaa Bosnia. boqortooyada Austria-Hungary ayaa ka koobnayd laba dal oo kala ah Austria iyo Hungary. taariikhdu markay ahayd 28 bishii 6 1914, Franz Ferdinand ayaa u safray Bosnia, waxa uuna gaadhay ilaa Sarajevo oo ah koonfurta Bosnia, waxaana safarkaasi ku wehelinayay xaaskiisii. Franz Ferdinand waxa uu tagay halkaasi si uu soo kormeero ciidamadii ku sugnaa halkaasi ee hoos imaanayay boqortooyada aabihii ka taliyo ee Austria-Hungary. laakiin booqashadiisani waxay cadho gelisay dadkii reer Bosnia iyo Herzegovina ee aaminsanaa aragtida nationalismka, waxayna ka cadhaysnaayeen boqortooyada aabihii hogaamiyaha u yahay ee dalkooda ka arrimisa. waxayna rabeen dalkoodu uu hoos tago dowladdii Serbia. sidaasi waxaa ku asaasmay urur dhalinyaro oo aaminsan aragtida nationalismka. mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo lagu magacaabo Gavrilo Princip, da'diisuna ay ahayd 19 jir, ayaa halkaasi ku toogtay Franz Ferdinand iyo xaaskiisii Sophie oo ahaa lamaane ka soo jeeda boqortooyada Austria-Hungary. sidaasi ayayna labadooduba isla goobtii ugu geeriyoodeen. dilka Franz Ferdinand ayaa aloostay xaalad cusub. boqortooyadii Austria-Hungary waxay dilkaasi ku eedeysay inay ka dambeeyeen dowladdii Serbia, waxayna sidoo kale dowladda Ruushka ku eedeeyeen inuu taageeray dowladda Serbia. sidaasina waxay boqortooyadii Austria-Hungary taageero ka codsatay dowladda Jarmalka si ay garab uga siiyaan Ruushka iyo wadamadii isbahaysiga la lahaa ee Faransiiska iyo boqortooyada Ingiriiska. maadaama quwaddii weyneed ee Ruushku taageersanaa dowladdii Serbia, boqortooyada Austria-Hungary waxay ogolaansho isgarabtaaga ka sugayeen boqorkii ka talinaya Jarmalka ee Kaiser Wilhelm II. maadaama boqortooyada Austria-Hungary ay ka baqaysay faragelinta Ruushku inay sababi karto in wadamada Faransiiska iyo boqortooyada Ingiriisku ku soo biiraan dagaalka, maadaama ay isbahaysi la lahaayeen Ruushka. 5 bishii 7 1914, boqorkii ka talinaya Jarmalka ee Kaiser ayaa si sir ah warqad ugu soo qoray boqortooyada Austria-Hungary, waxaana warqadaasi ugu sheegay in dowladda Jarmalku garab taagan tahay boqortooyada Austria-Hungary haddii dagaalku bilaabmo. dhinaca kale, dowladdii Serbia oo aaminsanayd in boqortooyada Austria-Hungary ay dagaal diyaar u tahay ayaa hegan gelisay ciidamadeedii, waxaana taageero weydiisatay Ruushka. taariikhdu markay ahayd 28 bishii 7, boqortooyadii Austria-Hungary waxay ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah dowladdii Serbia. halkaasina waxaa ku burburay heshiiskii u dhaxeeyay quwadaha Yurub. kadib ku dhawaaqitaanka boqortooyada Austria-Hungary ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Serbia, isbuucii u horreeyay wadamada Ruushka, Belgiumka, Faransiiska, boqortooyada Ingiriiska iyo Serbia oo hal dhinac wada ah ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah boqortooyadii Austria-Hungary iyo Jarmalka. sidaasina waxaa ku bilaabmay dagaalkii koowaad ee adduunka. qaybtii koowaad ee taariikhdii dagaalkii koowaad ee adduunku intaasi ayay ku eg tahay. haddii aad wax ka faa'iiday, fadlan la soco qaybta labaad. haddii aad channelkeena ku cusub tahayna, fadlan subscribe si aad u daawato qaybaha dambe aan soo gelin doono. la soco qaybta xigta.